guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa kulan xog waraysi la qaatay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland Sareeya Gaas Cabdullaahi Fadel Iimaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diriye kulankan oo warbaahintu intii u socday dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ula hadlay gudoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtida Xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland Sareeya Gaas Cabdullaahi Fadel Iimaan waxaanay ka warbixiyeen waxyaalaha ay ka wada hadleen intii kulankan socday golaha guurtida waxaanu kulan la yeelanay xog waraysi oo shaqadii maalmeedkii caadiga ah iyo warbixintii aan kala qaadan jirnay guddiyada golayaasha iyo hay'adaha nabadgelyadu taliyaha ciidanka booliska iyo wasaaradda dakhliga runtiina arrimihii aanu isugu nimi ee xaaladda dalka si wanaagsan baanu u kala qaadanay maadaama aanu kala fadhigii lixaad ku jirno waxaanu warbixinta wixii warbixinaha u soo gudbin doonaa idinkuna goobjoog ka noqon doontaan golaha markaan u gudbinayno sida gudoomiyaha guddigu uu sheegay waxa saaka noo yeelay guddiga waxaanu iska wareegsanaynaa xaaladaha nabadgelyo ayaanu iska xog wareegsanay waajibaadka naga saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska ciidanka booliska wixii warbixina iyo wixii aynu weydiiyeen iyo wixii aanu isdhaafsanay si fiican baanu isu afgaranay marka golaha kulli warbixinta guud siinayaan dhankiisana wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay inay kulamadani si socon doonaan runtii wax Soomaalida waxa ku maamulaa gogoshi waa nabad dawlad gogoshid waa nabad mad haddii aanay haysan nabadgeliyo waxba dhaqan mayso waxba dhisan mayso cibaadada xitaa ciriiri gelaysa iimaanka laga horreysay nabadgelyada waxaan ka wada hadlay waxa ay nabadgelyada qarankan iyo sidii wax looga qaban lahaa tafaashiisheedana gadaalba ka heli doontaan kulli golaha guurtida warbixintooda ay soo dari doonaan hase yeeshee waxaan xoog saari doonaa haddii la yiraahdo shuruucda nabadgelyada si loo hirgelin lahaa qodobka weyn ee ka soo aan muxuu ahaa doonayay inay sheego shuruucdii nabadgelyada sidii loo hirgelin lahaa wixii jirana muxuu ahaa loo hirgelin lahaa wixii wax ka dhaman yihiin loo dhameystiri lahaa ayaan isla soo qaadnay dhan walba oo iska tusnay muxuu ahaa nabadgelyada iyo xaaladda iyo qarankan halku marayo Cabdi Fataax Ismaan telefishinka Somali Cable